السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ددوينو كسدوادا برنامجك اس بي channel تاريخوينك سومالي بانتو برنامجك مانتنا ايسن انجيديوي والغردك اقونيهانك سومالي بانتو احمد هلجما تاريخوينك سومالي بانتو سيفايل والاسنك اوغيا برنامجك انو اس ايسن انجيديو انا كسابسني تاريخوينك بقرتوينك سومالي بانتو احمد كسدواو برنامجك اس بي channel. السلام عليكم تعالى ورحمة الله وبركاته. أولا كنا محمد أحمد الجماعة أنا أدي سوق بناية برنامج جرأ كسبسن تاريخ هذا كاسو عنك أقول لي هاي أنا أوصل بندقه ومدة ولا عليه جاه إن أنا وذاقه واحد تاريخ أو لقريه كنا سابسن قومي هذا سمعنا بعده أما جرى وينه تاريخ ثاني وحن روا سوق دي سجارة إن أنا أوجه الله أنا ضد المرايا وإن أن أوجانا هرت صباحا يسيابوين كأنا مرك أوجهريسو أن أدل من نهاي بين بلاو يسابوها أن إسكوي دين إنه مسلم من مجرتمية ودتك خارقود معنا سؤالش إن بدنا يسوي دين سومالي لحديدا أو إليه إن دتك المسلم معنا رنتي واحد ربع التاريخ ذي مات إن أنكو صلاة أنت ير حسن حسوستن أباهن دب ويجستن أباهن أو كسليسن سأقولك بقرطوي قومية سومالي بانتو أم جريد ويني أن ساعات بقرطوي وانكفع وينها مركب بقرطوي أهان الحسابية بس ساعات كانوا وحي نقدين ساعات كلي أي ما أنت لحسوا إلى حسوسن كرب خدوا سوماليا وضل نوع سوماليا محيها هنجرين دلك سوماليا دتك اللي هو جمد أما إنديجينوس كا أما ديجان كبيسكله ودت كان جروينه إيه سومالي بانتو بس لكن دبعته جرتي يدل ميجي جري أي وحو سبب ما أنت إن تدواتني لو في قد لو خيو تدواتني لو في قد مرك لو خيو بين قاركودنا أفكر لو جديه قيب كميت أجلاء لو تلقى إن لو أبتريا أم حوق الربع إن لسكوكو سلايا تاسو عن مركي دم إياه مركي هربا دتك يعني معناها دنت كوك لفتي وحياة كوك لفتي إنسان أوين بس لكن هذا أتوم ليس إن وحبنا لك فائدة وحبنا لنا تصالحاته سأل كان بقرتويو إجر الوينة وحكى سوق قابلنا بقر برحو بقر بعير بقر مرفتارف بقر دبكابالة أما دبكابالو بقر سبب بابو فيلا آرو جيدي بابو بقر تولان إيو بقر كي أقدم بيه على محرسته بقر نصيب بونت لما أنتو إلهي أقدر محرسته هذا واحد ربنا سأل كان بقرتويو maxay ku kala salaysanaayeen maxay sax xukum jireen inteesa kala haysteen runtii markaan ka wada hadalno anaga waxaan nahay qowmiyad leh min sagaal gobol ee Soomaaliya sagaalka gobol ee Soomaaliya markii la isku wada daro 18 gobol laakiin sagaal kamid ah adiga iska leh sagaalkoodii ayaa inta lagu qabsaday isla markaasna lagu dulmay lagu haystaa lagu dhacaya maanta dhibaato lagu gaarsiinay waxa jirta caalamka masiibooyin ku dhaco dadka indigenous ka ama dhulka loogu yimid masiibooyinkaasi waxa kamid ah dadka loogu tagay dalka Mareykanka ee Indianiska ah waxa markii ugu horeysay ee wadankaasi la tagay la qabadsiiyay luqad la dhaho English markii dhulkoodii la qaatay la boobay la dhacay la dilay la kufsaday wax walba lagu sameeyay oo aan loo aabiyeen ugu dambeyn dalkaas maanta waxa ka talinaya dad madow ah ama madaxweyne madow ah oo ah Barack Obama waxaan tusaale kale u soo qaadanaynaa dalka loogu magac daray ama lagu magacaabo Australia waxa iska leh dad madow ah oo magacooda loo TV dadkaasi loogu tagay dhulka waxa ka qaatay dal cadaan ah waxaana la qabatay luqadda Englishka taasna waxay sababtay in ay haystaan hidaha iyo dhaqanka Soomaaliyana waxa ka dhacay waa isla tabtii ka dhacday labadaas dal aan ka soo sheekeynay iyo dalalka qaar ee Scandinavian iska leh ee leeyihiin niman Saami la dhaho balse la farac guuriyay isla markaasna lagu sababo in ay degaan dhulalka geesaska barafka ah laakiin dhulka ay leeyihiin ayaga Europeanka laftigooda ayaa sidaas isku kala boobay haddaba wadamadan laakiin waxa ka jira wax la dhaho saami qaybsi xaq ku salaysan balse Soomaaliya laga yaabo inay ka jirto midaas sababtoo ah dhibaatooyinka Soomaaliya loo geystay qowmiyadeena waa mid ka fac weyn ama mid ka sareysa dhibaatooyinka kale ee ka jira dadka indigenous ka aan ka soo hadalay sida Mareykanka iyo Australia loo geystay waxaan rabaa in aan volunteers ama wax yar aan idinkaga sheekeeyo dhibaatadan salka halkay ka bilaabatay salka halkay ku haysaa runtii dhibaatadan qowmiyadda sida weyn noogu soo hogaamisay nala soo maagtay maanta waa qowmiyad aad dhibaato u haysata iyadana waxaan idin sheegayaa Oromo markaad maqashaan waxaan filayaa inay tahay aadna wada taqaaniin inay yihiin Ethiopian laakiinse
oromo maxay ahaayeen oromo waxay ahayd qowmiyad fac weyn waxay la tartami jireen qowmiyadda Soomaali maanta ama jiray wayne sababtoo oromadu waa qabiilka kaliya kushiitika ah ama jilacda ah isla markaasi haysta ama raba in ay wax fashaan waana qowmiyadda kaliya ee jilac ah ee beer falata waxaa dhacday taariikh ahaan boqorka ugu faca weyn dibka baylo ama dibka baalo si loo yaqaanaba dadka inta badan waxay dhahaan dibka bayle laakiin dibka baale ayaa intuusi badan magacaasi u wataa qarniga aan ka sheekeynayno waa 700 sano ka hor dhammaan marka laga reebo boqor nasiib bondo oo ahaa qarnigii 18aad dhammaan sideeda kore boqortooyooyinka jiray weyne way dhumeen haddaba sabahay ku dhumeen maxaa ugu fac weyn ama ugu weynaa ama natiijadooda ay ahayd sababtoo waxay lumiyeen ama ay ka tageen dhankii xiriirka bantu ee dadkii kale Afrikada deganaa waxay noqdeen dad kaligood ku go'doonsan dhulka Soomaaliya waxay noqdeen dad inta cadow u soo tashtay ku dul yimid isla markaasna meeshii lagu kala qaybsaday waxay noqdeen qowmiyad isla markaas meesha ku baabaasan runtii waxaan rabnaa marka in aan idin soo qaato sheeko cajiib leh oo aad la yaabi doontaan haddii xataa idinka aad baartaan maanta ama dib u eegtaan oo aad dib u eegis ku samaysaan sheekadan waxaa ka mid ah marka sheekada la dhaho waxaa dhacday qarniyada aan ka soo hadlayno marka boqortooyinka horta sida isku kala xukuma intaan ku gudagelin ayaan rabaa waxaa jiri jirta marka dagaal u dhaxeeyo boqortooyada Oromada iyo boqortooyooyinkii soo maray qowmiyadda Bantu oo sanooyin 2 sano 4 sano 5 sano 6 sano mid walba markuu xukunka qabto midka kale uu ugu tagi jiray same kan kale uu sii gaarsiiyo mid walba midkuu xukunka qabto oo mid kale ugu tagi jiray waxayna kaga duwanaayeen boqortooyooyinkii hore waxay kaga duwanaayeen dadka boqortooyooyin kale soo maray Afrikada waxay ahaayeen dad qaanuun leh sharci leh kala dambeyn leh oo u diyaarsan tahay kuna nool nabad iyo naxariis waxayna qaybsan jireen arrimaha khuseeya naftooda arrimaha khuseeya dadkooda arrimaha khuseeya wadaniyadooda arrimaha khuseeya qadiyadooda haddaba waxaa dagaalkaasi dheer loo qaybiyay saddex dagaalka marka saddex loo qaybiyay waxaa loo qaybiyay caruurtii gawaweyn caruurtii aylo caruurtii Shabeelle iyo caruurtii Shiama Ahmed caruurtiisu waa kuwa Puntland ku dhumay loo bixiyay magac la dhaho sida Ismaan Maxamuud ama loogu magac daray Ismaan Maxamuud balse laakiin Ismaan Maxamuud ma ahan asalkoodu waa jareer asalkoodu waa Bantu haddaba dagaalka oo socday in muddo ah dagaalkaasi oo ay qaadeen qowmiyadeena oo inta badan lagu soo qaadi jiray dagaalka ayaa waxaa ciidamada ku hogaaminayay hogaamiyaal ka dhashay beelaha ama beesha inkastoo qowmiyadda ay leedahay beelo badan beesha reer Shabeelle iyo waaweyn oo isla socda iyo ciidankii Sheekh Maxamed iyo ciidan ay la ka socda oo yaa gudaha loo diray in ay dagaal adag la galaan boqortooyadii oo hogaaminay Oromada dagaalkaas marka gudaha loo galay Ethiopia ayay gudaha u galeen waxaa dhacday gobolka ugu weyn ee Oromiya wuxuu fadhigiisu yahay marka oo leh oo haysta boqortooyadii markaasi Oromada ahayd ee faca weyneed kana jirtay dalkaas marka dagaalkaasi la isku lafa gurtay oo dhibaatooyin badan oo meeshii la isku lafa murxay oo ay jilbaha la isku dhigtay oo wax walba ay ka dhaceen waxaan dagaalkaasi u qaatay muddo 16 cisho ah gudaha dalka Ethiopia maanta waa la yaab haddii aan ku dhaho gudaha dalka Ethiopia dagaal ayaa ka dhacay dagaalkaasina waxaa geystay ciidamo jarar weyne waxaa laga yaabaa in ay isweydiisay taariikh nuucan ah sidee ku dhacday halkeesu ku jirtay maxaase loo sheegay haddaba nin taariikhdiisu duwantay ama la rabo in la aaso qof u sheegaya male ilaa ma uu asiga ka daba gaaro ama taariikhdiisu dib u soo eego baarista taariikhdani oo muddo dheer igu qaadatay inta aan ku guda jiray in aan barto iyo inta aan ku guda jiray in aan xogtada ogaado natiijadeeda dhabta ah markii ugu dambeysay waxay ku soo baxday wax xaqiiqda ku salaysan xaqana ku salaysan sideedaba ma dhunto taariikh ku salaysan xaq waxaan tusaale u soo qaadanaynaa markii dagaalkii uu dhacay ayaa waxa ay qabsadeen ciidamada Bantu magaalo u jirta 67 kiiloomitir caasimada Addis Ababa magaaladaas markay qabsadeen waxa meesha iskaga barakacay oo iskaga yaacay nimankii Oromada ah ee haystay magaalada oo saldhigoodana uu ahaa magaaladaasi oo loogu magac dari jiray markii ay qabsadeen ayaa magaceeda hore waxa loo yaqaanay oo aad iyo aad ay caan ugu ahayd ganacsi
waxayna magaceeda hore ahaa saldhigna wuxuu ahaa magaaladaasi sidoo kale aan xusno boqorkii hogaaminayay Oromada. magaaladaasi ayaa magac ahaan u weedatay Oromo. magaaladaasi ayaa magac ahaan u weedatay Oromo. gobolkan wuxuu ahaa Oromia. waxaa dhacday dagaalkaasi markii la qoomiyadda gashay ayaa waxa isu soo aruursaday dhammaan nimanka Koshitaka ama Jaleecda ah. waxay isku soo aruursadeen inay Oromo garab siiyaan. waxay isku soo aruursadeen inay qoomiyadda Bantu soo jabiyaan. haddaba dagaalkii waa lagu soo jabiyay ciidamadii Soomaali Bantu ama Jareer Weyne. markii ay kasoo laabteen dagaalkii ciidanka ugu dambeeyay wuxuu saldhig ka dhigtay Qalaafe oo ay maanta degan yihiin beelsha Jareer Weyne ee reer Shabeelle iyo dhankaas kale oo ay degan yihiin waliba ay gawaaweyn xataa ay qiimo badan ay ka degan yihiin dhanka ismaamulka Itoobiya. taasna waxay sabab noqotay in difaac meesha laga xirto oo ay ka xirto ciidamadii markaas la soo jabiyay. waxaa dhacday isla taariikhdaas gudaheeda markii ay ku soo laabtay nimankii Oromada ahaa dhulkii ay haysteen Jareer Weyne ayaa isla markii waxay ugu magac dareen Bantu Town, magaca la dhaho oo ah magaaladii ama caasimadii Bantu, maadaama 16 cisho ay ka dagaalamayeen ciidankii Bantu. uuna u qaadan waayay ninkii la dhahayay dadkii hogaaminayay boqortooyadii Oromada, maadaama ay la noqotay wax fajac leh oo ay la noqotay dad tira ahaan uu ku xisaabtamay inuu ka badan yahay, awood ahaan uu ku xisaabtamay inuu ka badan yahay, in si dhib yar leh ay u galaan. haddaba meeshaas waxaa kaaga muuqato in geesiyaashii hore ee soo maray boqortooyooyinkii watay ee ciidamadii soo dagaalamay in ay awoowayaashiin ahaayeen dad geesiyaal ah, marna aan kasoo gambanin dagaalkii galaan kuna soo guuleysan jiray ilaa ma la iska soo bahaysto. haddaba aniga maxay ku dhacday in aan dagaalkaas ku guuldareysano? wax kale maaha, dagaalkaas waxaan ugu guuldarsanay ciidanka difaaca ahaa in la ka rabo in aan la yeelano ama aan la yeelano khadadka xiriirka leh Afrikada kale waan wada jarnay. waxaan noqonay dad ku nool kaliya kuna kooban dhulka Soomaaliya, meelna aan xiriir la sameynin. taas waxay ku dhacday xiriir la'aantii awoowayaasheena. sidaa la aaminsan yahay waxaa jira cilmi la dhaho Doi civilization. marka Doi civilization dib loo eego cilmigaas wuxuu ku tusayaa in Soomaaliya weliba East Africa gaar ahaan dadka madowga ah degan ay kasoo farxmeen ama laga farxmay ayaga. waxaa taas ku tusaysaa in Afrikada aniga ay naga farxantay. caalamka ninka jilaaca markuu soo abtirsadan wuxuu u imaanayaa qabiilada ugu faca weyn oo hadda weliba aan ku xusi karno qabiilka Eylo oo inta badan dhalay carruurta Jareer Weyne. qabiilka Eylo magaca uu isticmaalay ilaa hadda waxaad arkaysaa in ay aad ugu badan tahay. maxaa yeelay waxay isticmaalaan sida bayle, waxay isticmaalaan dibka, waxay isticmaalaan sida sabababo, waxay isticmaalaan fayl arow, waxay isticmaalaan mad sabrow. ereyadaasi kuma arkaysid mana isticmaalaan Jareer Weynaha kale sababtoo ah ay waxay yihiin dad si toos u galaya. markaan anaga ayagu ku abtirsano waxaan la aaminsan yahay cilmiga rasmiga uu yahay kala qiimeynta intaysan imaan in annaga oo dhan aan ayaga kasoo farxmayno. Afrikada shanta la isku yiraahdana ee ayaga ka farxmayaan. Afrikada shanta waa kuwa marka Afrikada shantu markaan idin soo tiriyo waa nimanka la dhaho Uganda, nimanka la dhaho Kenya, nimanka la dhaho Tanzania, nimanka la dhaho Rwanda iyo Burundi. Afrikada shanta la isku yiraahdaa nimankaasna inay ka farxmeen maxay ahayd qoomiyadda Soomaali Bantu oo idin balse laakiin faraxa ugu weyn waxa iska leh Eylo. haddaba waxa dhacday sababta loo duugay aan ka hadalno maalin kale taariikhaha ku saabsan faracayna iyo sida aan kala faracnay sida aan isku dhaldhalnay marka aan kasoo tagno awooweena Baana Ciiso bin Ham. waxaan u sii dhaadhacinaa oo aan rabnaa markaan ka hadalno taariikh yar isla markaasna ku sayso aawe marka caruurtii Shiyaam Axmed. haddaba dagaalkii markii lagu guuldareystay qoomiyadii ay ka baxeen meeshiina ay ka baxeen boqortooyooyinkii Jareer ee mar walba isbedbedelayay xiliyadoodii ayaa waxaa dhacday in dagaalkii aan ku jabnay muddo badan. dagaalkaasina aan ugu jabnay kaliya xiriir la'aan. maalintaas ayay tusaale noo ahayd in ay jirto xiriir la'aanta oo la gooya inay dhibaato badan leedahay. maanta waxaan aragnaa haddii xiriirka goynay in aan murug badan iyo mushkilad badan ka qaadanayna meesha. haddaba waxaan rabaa marka in wax yariis aan ka hadalno. ciyaalka Shiyaam Axmed waxay degaan Xaafuun iyo waxay degaan Boosaaso. waxaa kusoo duulay oo dhinac badda ka soo galay oo isla markaas dhinac badda ka soo galay nimankan hadeertan majeerteeniya la dhaho ama Puntland baxay. dhulkii ayay qabsadeen. nimankii Oromada ahaa ee dagaalka nagula soo jiro waxay si toos ah u soo abaareen marka dhulka lixda ah. dhulka lixda waa kuwa la isku dhahaa waxa la isku yiraahdaa markaan soo tirnayna Bay, Bakool,
shabeellaha hoose, jubbada dhexe, jubbada hoose iyo gado. dhulka lixdaa markay ku farsmeen waxaa awood ay u yeesheen in ay la wadaagaan magac ahaan qabiil, isla markaas waxaa la sameeyey system la dhaho Digil and Mirifle. haddaba Digil and Mirifle idin kaga sheekeeyo taariikhahan Digil Mirifle wax la lahay ma jiro. 300 waa Jareer. sababtay ku dhacdana waxay tahay Digil and Mirifle waxaa imaatay wax la dhaho midowga Sofiyooti ama iskaashato, maadaama ay ka baxday boqortooyooyinkii xukumayay dhulkaas. waxay danta Oromo ay ahayd in ay gacanta ku dhigto, isla markaasna ay saldhig ka dhigato halkii dib ka bayle boqorkeenii uu xukumi jiray. boqorkaas oo ahaa boqorkii ilaah. boqor barax wuxuu ahaa boqor shidle kasoo jeeday. boqor abaciir wuxuu ahaa boqor kasoo jeeday gawaaweyn. boqor murtaar wuxuu ahaa boqor kasoo jeeday gawaaweyn. sidoo kale boqor fayla aro sidoo kale ama sabab baabo labadooda waxay isku ahaayeen gedi baabo dhammaantooda waxay ahaayeen boqor kasoo jeeday qabiilada Aydo. boqor Tulaan oo kale wuxuu kasoo jeeday qabiilka Shiido. boqor Nasiib Buundo wuxuu kasoo jeeday qabiilka Shambara. haddaba markii dagaalkii iyo wixii nalka guuleysto waxaa imaaday system marka dadkeena lagu dhex degay oo la divide and rule, dhexdeg oo kala qeybi. dadkii waa la dhexdegay, waa la kala qeybiyey, siyaabooyin badan ayaa loo kala lafa gurtay. okay, qarniyadii markii laga soo tagay kadib waxaa nasiib wanaag dib usoo cusboonaaday kacdoon labaad. kacdoonkaasi labaad waxaa kusoo baxay boqor Nasiib Buundo oo asiga xukumayay jubbooyinka. boqor Nasiib Buundo oo jubbooyinka xukumayay ayaa wuxuu bilaabay in asiga markaasi aasaaskiisii iyo xiriirkiisii uu dib usoo celiyay. wuxuu soo dejiyey nidaamkii boqortooyooyinkii hore. wuxuu ujeedkiisu ahaa in dhulka Soomaali Bantu dib loogu soo celiyo ka arrimintii boqortooyooyinka. nidaamkaasi oo ahaa nidaam aad u culus waxa iska kaashatay oo boqorka oo howlwadin u noqday, isla markaasna hoggaan u noqday dad badan. wuxuu hoggaan u noqday in shacabkiisa uu ku dhaqo nidaam iyo jadwal iyo system iyo kala dambeyn. haddaba waxaasoo dhan waxaa dhex degay markii dambe boqor Nasiib Buundo wuxuu jiray qarnigii 18aad wuxuuna dhintay qarnigii 19aad 1906 waxaana dilay gumeysiga Talyaani oo cil badan u qabo, maadaama uu ahaa qof aad iyo aad usoo dagaalamay oo aad iyo aadna gumeysiga kaga soo horjeeday. dhammaan ay ka cawdeen qabiiladii lama godlaha ama aan u naqaano Kushidiga. haddaba taariikhdan maxaa loo xusi waayey? waxay tahay isla markii ma jirin xilligii Maxamed Saad Barre ka hor wax la dhaho Jareer Weyne, balse 1959 markii la qaatay xorriyadda Soomaaliya markii intaan la qaadan xorriyadda Soomaaliya isla markaasna la soo dilay ninkii hoggaanka u ahaa SYL ee asaasay isla markaasna Jareer ka dhashay ee la dhihi jiray Cabdiqaadir Sheekh Saqaawudiin. waxaa go'aan lagu gaaray in meesha lagu lafaguro barnaamij cusubna la sameeyo, la rabo dadka in lagu kala qaybsho. waxayna sameeyeen wax la dhaho Jareer. magaca wax lagaaga dhigay cayd. markii ugu horeysa sababta haddana magacan lagu siiyey waxay ahayd in magaca magaalada Bantu Town la dhaho ee Itoobiya 67 kilomitir u jirta caasimadeeda aadanba ogaanin, balse laakiin magacan maanta qof walbaad ku qabsan kartaa. haddaba haddaad rabtid magacan inaad aado ama aad rabto magacan inaad iga soo hubiso waxaan kuu dirayaa 2 meel. gal YouTube waxaad ku qortaa Oromia Region. markaad Oromia Region ku qorto waxaad dhahdaa Bantu Town, magacaasi wuu kusoo baxayaa isla magaalada waadna kusoo arki kartaa. qofkii awood u leh uu rabo in uu soo obsado waa aadi karaa oo Bantu Town wuu soo booqan karaa. waxaan idin sheegayaa bartaasna inay tahay bartii ciidankii qowmiyaddeena ay ku dagaalameen. waxaan sidoo kale daawaya ama sii dabracayso oo arrintaasi macnaha tixraac badan ama sii la socoto ayaa ah haddii aad rabto inaad ku samayso tixraac badan arrintan fadlan waxaad gashaa internetyada caadiga ah waxaadna ku qortaa Oromia Region isla markaasna Bantu Town. waxaa kusoo baxayso saacadda xilliga ay tahay Bantu Town, saacaddaasi ay ka tahay meesha aad joogtid, xilligaasi waxay ka tahay iyo macnaha akhbaaraadka ku saabsan magaaladaas. fadlan aa ogaado tani waa taariikh u baahan in dib loo soo nooleeyo. maalin kasta waxaan isku dayayaa ama xilliyada qaar waxaan isku dayayaa in aan dib idinkaga soo sheego taariikhaha qowmiyadda iyo xaqa iyo xuquuqda ay u leedahay. fadlan gaarsii qof walba oo walaal ah si uu wax badan kala socdo. waxaan idin sheegayaa dhammaan dadkii faca iyo faraca weynaa ee qowmiyadda ka dhashay dhammaantood in la duudsiiyey, dhammaantoodna magacyo kale la siiyey. waxaana dhexdegitaankii loo isku dayay in lagu kala qaybiyo arrimo la dhaho Digil Mirifle, arrimo la dhaho Biyamaal. markaan idin sheego ama markaan idin xifdiyo maanta waxay ka kooban yihiin Kushitik iyo Bantu, balse ma is weydiiyeen sababaha magaca ku qasbay in la kala qaato. waxaa Soomaaliya loo qaybiyey 3
Soomaal, Tumaal iyo Biyamaal. saddexdaas maxaa loogu kala qaybiyey? Biyamaal wax kale ma ahayn, waa biyihii oo la Soomaali jiray ama beermaalkii ayay biyo ka dhigeen. waxaa taas loogu talagalay in lagu dulmiyo marka isla qabiilada qowmiyadda Bantu. waxaa qabiilkaas oo kale aan usoo qaadanaya marka oo tusaale aan usoo qaadanaya maanta niman baa ayaga sheegto rabo in ay xoogaan ku shidiga. sababaha loo sameeyey maxay tahay? waa dulmi la rabo in dhulkoodii lagu dhaco. inkastoo taariikhdaas ay aada u fog tahay, haddana dadkan ay aada kaga soo sokeeyaan, haddana waxaan tusaale kugu filan Digli Mirifle. waxaa magac ahaan, xaquuq ahaan, xaq ahaan dhulka iska leh waa dadka Digli Miriflaha Bantuga ah. balse maxaa lagu aafiyey oo lagugu darajiyin waayey sidaa? sababtoo ah dhexdega ayaa bilowday iyo in lagu qabsado ama lagu qeybiyo divide and rule wax la dhaho, oo ah micnaha dhexdeg oo qeybi. systemkan raadraaciisu aada u weyn yahay, waa mid aada u dheer. waxaa loo baahan yahay in qof walba oo Bantu ku abtirsan ama Jareerun ku abtirsado uu fahmo. 1959 waxaa la qoray buug tilmaamaya in qowmiyadda Soomaali Bantu ama Jareerweyne laga tirtiro ama laga ciribtiro Soomaaliya. sababaha iyo qaababka looga ciribtiri rabana wax kala ma ahayn, maxaa yeelay ayaga xiriir ay Afrikada la lahaayeen ama dadka walaalahooda la lahaayeen ma jirin. fadlan ogsoonow, marka aad soo baxday ee aad qaxootiyadu kasoo bilowda noloshaada ama aad imaatay 2000 wixii kasoo dambeeyey, waxaa ku baxa magaca la Soomaali Bantu. ilaa hadda dadka waxay u maleeyaan magacaas in ay bixiyeen United Nation. No way. laakiin waa inay fahmaan dadkayga, magacaas ma bixin United Nation. waa tahay Bantu Allah kaa dhigay, qowmiyad fac weynaa tahay, balse laakiin waxay u ordayaan in Jareerweyne ay ku siiyaan si taariikhdaada loo dulmo. maxaa yeelay hadda waxaad ogaataa Nasiib Buntu taariikhdiisa ugu dambeysay waa tii ugu dambeysay. talyaanigii dilay wuu ka maarmi waayo inuu buug ka sameeyo ama uu ka qoro, laakiin iyagu waxay ku dadaalayaan in aysan buug ka sameyn kana qorin sababaha oo jira awgeed. maxaa yeelay waxaa la rabaa in wax walbo oo qowmiyad ku abtirsata la daboolo. waxaan u maleynayaa in waqti badan aan geliyey ama waqti badan aan kasoo hadlay, balse laakiin manaafacaadka ku jiro ama fursadaha ku jiro ee aad kaga faa'iideysan kartid warbixintan iyo warbixino kale oo la mid ah ayaa ah wax loo baahan yahay in maskaxdaada ay gasho, ayaa ah wax loo baahan yahay in maskaxdaada ay ka daadagto, ayaa ah wax loo baahan yahay in maskaxdaada aad isla markaas ku kiib garayso ama aad ku xifdiso si caruurta aad adiga berita dhashin aad uga sheekeyso ama kuwa maanta ku joogaba. maxaa yeelay caruurta waxaa fiican in aan barno waxa aan anaga nahay marka ugu horeyso. ninka la dulmay ha weydiinin sababta lagugu dulmayo adiga ama qabiilkaaga noocaas u galayo ama barnaamijkaas noocaas u galay, sababtoo ah waxyaabaha jira bal dib u tixraac. waxaa tahay qowmiyad lagala soo dagaalamay dhinac kasta. taas markaan kula dhinac kasta wax lagala soo dagaalamay, dad baa maanta waxay yiraahdaan Maxamed Siyaad Bare dowladiisa Allah maxay u taagnaan weysay. dadkaas waa Jareer, laakiin ma ogsoono Maxamed Siyaad Bare dowladiisa haday jir leh inta maanta kaa dhimatay ka badankeed iska daayay waa lagu zuulin lahaa. isweydiina marka sababta lagu zuulin lahaa. maxaa yeelay waxaa la qoray buuggaas oo lagu qoray 1959. buuggaasna waxaa loogu talagalay in lagu dulmiyo qowmiyadda Bantu ee calankii Soomaaliya xaq iyo xuquuqda u lahayd. buuggaas wuxuu amrayay in qowmiyadana laga tirtiro Afrika, laga tirtiro qaaradda Afrika, laga tirtiro dalka Soomaaliya, maadaama ayagana xiriir aysan lahayn walaalahood. waxna Afrilaad sac lagu dadaalayay qaabka loo kala qaybin lahaa oo divide and rule lagu sameyn lahaa, sida hadda ku dhacda ilmo Shiama Axmed. haddaba waxaan kulan mar yeelanay ninka soo jeedo Bantuga Puntland. markaan idinkaga hadlo runtii ninkaasi taariikhda sida uu ahaay iyo sida wax badan uu iga sheekeeyay waa arrimo cajiib leh. runtii taariikhahan waa mid xusan kuwa la qoray. waxaan nasiib u yeeshay in aan helo ama aan tuuladii markaasi aniga asal ahaan kasoo jeedo ee gobolka Shabeellaha Hoose aan ugu tagay maqaaro ay qoreen dad odayaal ah, kuwaas oo dhaxal ahaan ay nooga tageen si micno anaga wax badan kala socono. fadlan marka aad dhageysato warbixintan waxaad noo sheegtaa haddii aad ku qanacsan tahay in aan dib idinkaga soo sheegno taariikhdeena oo aan rabnay in aan wax badan idinla socodsiino si aan isku waafaqno. fadlan codeynta ama ra'yi ka bixinta waa idinka dhankiina. maxaa yeelay waxaan u baahanahay walaalka muwaadanka ah ee qowmiyadda Bantu in uu fahmo qadiyadiisa rasmiga ah. waxaan u baahanahay walaalka ka dhashay qowmiyaddan faca weyn ee Afrikada loogu yimid, qowmiyaddan faca weyn ee dhulka Soomaaliya loogu yimid, dulumka halkuu kaga soo bilowday. dulumkan ma yahay wax dhamaanaya? hal mid uu ku dhamaan karaa,
dunamkan waa anagoo gacmaha isqabsana waa qoomiyad oo wada tashata waa qoomiyad oo hal dhinac kaga soo jeesata waa qoomiyad oo wax iska dhicisa balse haddii ay maanta qoomiyaddeena noqoto qoomiyad fadhisa ee aan waxba dhaqdhaqaaq muujinin ha ogaato in la marsiin doono wadooyinka loogula tashtay la rabo in lagu qaybiyo owna loo soo sameeyey systemkan uu ahaa divide and rule laguna dhaqi doono inta ay ayaga ka hadlaan ama ka kacaan ama waxay qabsadaan intooda badanna waxayna ku dhacdaa masiibooyinkan dadka indigenouska ah sidaan hore kuugu soo sheegay kuwa maraykanka degan iyo kuwa australia labadaba loogu tagay iyo kuwa saamiga ah ee loogu tagay wadamada Europeanka ah sida gaar ahaan Scandinavianka walaal taariikhdaadu waa muhiim taariikhdu waa muhiim in dib loo xusaa taariikhdu waa muhiim in dib looga hadlaa taariikhdu waa muhiim in wax badan lagu sheegaa taariikhdu waa muhiim waa gaf dhacay oo dib loo saxayo taariikhdan si kale kuma dhumin taariikhdan waxay ku dhuntay luqadii rasmiga ahayd ee qoomiyadu ku hadlaysay oo la qaatay isla markaasna loogu bedelay wax la yiraahdo may iyo maxaa tiri taas oo loogu talagalay laftigooda in lagu gumaysto qoomiyada Soomaali Bantu laguna kala qaybiyo taas oo loogu talagalay in qof walba oo jireer ah luqad gaar ah uu wato ama uu wato lahjad gaar ah si aysan isku fahmin labadooda xitaa wixii dhexmaray balse laakiin maanta nasiib ay u leeyihiin in ay isfahmaan aqliyan maskixiyan fikrad ahaan waxaa loo baahan yahay in qadiyad ahaan maanta ay iska midaysan yihiin ay ka wada midaysan yihiin dhanka qadiyada sababtoo dadkani waa dad wada dhashay walaala ah dhulkana wadayaal dhulkana wada daadsan waxaa loo baahan yahay in ay is aruursadaan iskaashtaan iskana qabtaan cadow alaala cadowgii usoo duulay ee raba inuu naftooda maalkooda diintooda maanta ku dhaawaco haddii aad aaminsan tahay muslimnimadu waa inaad khaalis ahaataa marka aad adiga muslim tahayna kan muslimka nabadgeli marka lagu dhahay kan kale waa inuu ku nabadgeliyaa balse laakiin kan kugu soo duulay systemka uu wato muslimnimo iyo arrimahaas lama xiriirde wuxuu la xiriiraa barnaamij la dhaho systemka aan idin soo sheegay ee divide and rule ah dhexdeed oo kala qiimi haddaba dhulka barwaaqada sooranka ah ee Soomaaliya waxa iska leh oo xaq iyo xaquuq u leh qoomiyada Bantu waxa dul saaran in la soo degin waa ummad dulmi doon ah inta aan idin soo sheegay waxa jirta taariikh sida la isku kala dhalay ee Afrika u kala degan yihiin dadka ayaan kaga soo jeedin doono in barnaamijyo badan oo hadduu Ilaahay yiraahdo ay idin faahfaahin doono amaansantiin dhammaan walaalahayga sharafta badan ee qoomiyada Bantu meel walba caalamka ka joogto waa walaalkiina Axmed Halgama oo barnaamijkani si toos ah idinku soo diyaariyay barnaamijkan qof kasta oo qoomiyad ku abtirsada uu fahmo caqabadaha dhabta ah kana digtoonaado dhagarta ay wataan qaswadayaasha ee anaga nafteena micnaha u soo tashtay in ay nadilaan nadaan nabawan natirtiraan balse Ilaahay ma dhigin waana sidaan hadda qoraalkii fariinteedina kuugu sheegay Maxamed Saad burburkiisa dawladdiisa dan badan ayaa ugu jirta qoomiyada Soomaali Bantu badmaansantiin dhamaan balse laakiin maanta waxay laga faa'iideysan lahaa ma waa maansantii walaalay sharafta badnaa dadweynuhu barnaamijka uu geegsin hayni taariikhooyinka Soomaali Bantu boqortooyinka ona ninka hadalay Axmed Halgama hegiya ninka agya markastana may kala socdo kortana barnaamijka SP channel taariikhooyinka Soomaali Bantu SP channel YouTube SP channel Facebook SP channel Twitter hegiya kala socdo kortan assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh